dhammaanteen waxaan wada ognahay in awlaadda ama ubadku waa loogu deeqo addoommadiisa. Kani waa fanaan Qamar Suugaani, waana fanaan dhalinyaro ah isla markaana magac ku leh xagga fanka. Fanaankan waxa uu la kulmay xaalado aysan la kulmin fanaaniinta kale ee Soomaaliyeed, waxaana uu noqday fanaankii ugu dulqaadka iyo sabarka badnaa xagga fanaaniinta. Qamar waxa uu la kulmay hadal duulaan ula muuqday isla markaana kaga imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan. Waxay dhaheen waxaa tahay madhaleys ama ruux aan awlaad dhali karin. Waxay dhaheen waxaad ku fashilantay xagga nolosha. Waxay ku yiraahdeen isagoo nool waa uu dhintay. Intaasi in ka badan waxay noqdeen wax lagu aflagaadeeyay fanaankan dhalinyarada. Qamar waxay badeen culaysyo badan oo xagga nolosha, sida dadka aflagaadeynay in awlaadday gacantooda ay ku jirto oo kale. Waxay dhaheen haween kastoo aad guursato kuma qaadaan uur, sidoo kalena kuwii aad furtay awlaad ayay haystaan. hadallada ugu badan ee dhaawacaya qalbiga qofka waxaa qayb ka ahaa erayadan kor ku soo xusnay, balse Qamar isagoo qanacsanaanay sidoo kale kalsooni muujinaya ayaa waxa uu yiri awlaadda ama ubadka waa wax uu Alla hayo, isla markaana addoommadiisa xilliga uu doono isaga ayaa ugu deeqi kara. Anna deeqda Rabbi kama quusan weli. Sidaas waxaa yiri Qamar Suugaani. Deganaanta iyo xasiloonida fanaanka qalbigiisa ku laran ayaa noqotay mid xumaan uusan ugu qaadin qof kasta oo isaga soo aflagaadeeyay. Fanaanka ayaan hore u yiri waxaan cafiyay qof kasta oo been iga sheegay oo ula jeeday kuwa awlaadda ku aflagaadeeyay iyo sidoo kale kuwa isagoo nool dadkiisa kaga nixiyay akhbaar been abuur ahayd taas oo ku aadaneed Qamar waa uu geeriyooday. Ducada waa lama huraan. Haddaad hore u aflagaadeysay fanaankan, fadlan ugu duceey in qoyskiisu Alla uu ka dhigo mid barakooba isla markaana bilada caruura uu boqorku ku sharfo. Qamar waxaa jira shakhsiyaad badan oo bogag been abuura samaystay isla markaana qoraallo aan jirin kana turjumaya wax been abuura oo dadku ay ugu sheegayaan in qoraalada ay ka socdaan xagga Qamar ay ku soo daabacaan bogaggaas, waxaana dadka badi commentiga ka bixiyay qoraaladaasi ay yihiin kuwa aan hubsan in fanaanku uu leeyahay in kale. taasna waxay keentaa in dad badan ay aflagaadeeyaan fanaanku waxba aan ka galabsan qoraalkaas ay dadka arkayaanna aan shaqo ku lahayn.